daawada ku soo dhawaaw qiso cusub. nin ayaa wuxuu si aad ah u jeclaa xaaskiisa. waxay haysteen 2 carruur ah, wax kasta oo awoodana wuu siin jiray, balse xaaskiisa marnaba maqsuudku ma ahayn. inkastoo ninku uusan taajir ahayn, haddana wuxuu la wadaagi jiray wax kasta oo heli karo. hadduu u soo iibiyo dhar waxay ku oran jirtay, waxaan waa wax liita oo mar hore laga baxay. ninku wuu u dhoola caddayn jiray xaaskiisa, wuxuuna ku oran jiray, maalin ayaan taajir noqon doonaa, waxaan ku iibin doonaa dhammaan waxyaabaha qaaliga ah ee aad u baahan tahay. haweenaydu marnaba taleefanka ma wici jirin ilaa ay marka wax ka codsanaysa maahane. haddii uusan fulin karin codsiga, waxa keliya ay samayn jirto waa inay muranto, marmarna ay dagaalanto. galab isagoo shaqada ka soo baxay ayuu u soo iibiyey 1 kiilo hilib ah, isagoo faraxsan oo isla xaaskaaga ka yaabi maanta oo caawa si fiican reerka ha u casheeyo. markuu gaaray gurigii oo uu xaaskiisa tusay, waxay ku tiri, nin baad sheeganaysaa oo 1 kiilo hilib ah ayaad guriga keenaysaa, masaliid baatal iyo waxyaalo kale lagu daro. kadibna bannaanka ayay ku tuurtay hilibkii. ninkii aad buu u carooday, balse wuu isdejiyey, wuxuuna is yidhi, marnaba hoos ha u dhigin jacaylka aad reerkaaga u qabto. maalin ayuu xanuun badan ka dareemay cagta bidix, kadibna buro weyn ayaa ka soo baxday. 3 bilood kadib, markii ay aad u weynaatay, xanuunkiina ku batay, ayuu cisbitaal tagay, waxaana laga helay kansar. wuxuuna ahaa sabool aan awoodin daryeel caafimaad oo wanaagsan. inkastoo aad u xanuunsanaa, haddana wuxuu isku dayay wax kasta oo awoodo inuu reerkiisa ku quudiyo. 2 sano kadib, xaaladiisu ay ka sii dartay, waxaana la dhigay cisbitaalka. lugtii ayaana qaliin lagu sameeyey oo laga jaray, laakiin nasiib darro waxay ahayd xilli dambe. fayraskuna wuxuu saameeyey jirkiisa oo dhan. wuxuuna u yeeray xaaskiisa si uu la dardaarmo, wuxuuna ku yidhi, xanaanee oo daryeel carruurta, waxaan dareemayaa inaan adduunka ka socdo, allahna idin dhooro. wuxuuna neefsaday neeftiisii u dambaysay, wuuna geeriyooday. haweenaydii iyo 2diisa carruur way ooyeen. maalmo ayayna baroordiiq ku jireen. 2 bilood kadib ayay xaaskiisii booqatay qabrigiisa, wayna ag fadhiisatay iyadoo leh erayadan, waxaadna iila dhaqantay si sare, laakiin waxa keliya aad iga helaysa waxay ahayd muran iyo dagaal aan dhammaad lahayn. marnaba ma garowsan muhiimadaada iyo jacaylkaaga ilaa hadda oo aad naga tagtay. markii aan aniga noqday qof laga rabo cuntada, dharka, biilka, waxbarashada iyo waxyaabaha kale oo dhan, waxaan xasuustaa goortii aan tuuray kiiladii hilibka, laakiin hadda ma hayo xitaa nus kiilo meel aan ka helo. had iyo jeer ku qanacsanaaw oo ka mahadceli wixii lagu siiyo, hadday yar tahay ama weyn tahay. jacaylku ma aha wax badan inaan haysanno, balse waa sida la isula wadaago waxa yar ee la haysto. kuwa xiriirka idinka dhexeeyo, kula hadal mar kasta hadallo wanaagsan inta ay nool yihiin. qofna ma garanayo xilliga uu dunida ka tagayo. marnaba ha ku ciyaarin dareenka qofka ku jecel, ha dhaawicin qalbigooda, sababtoo ah hubaashii maalin intaad baraarugto ayaad garan doontaa inaad dayaxa weyday kolkii aad xidigaha tirinaysay.